السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلامي دمانتينا meel walba aad dunida ka joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub waa barnaamijkeeni la magac baxay quruxda dumarka waa timaha maalintii labaad ee isla challenge gareynayna insha Allah si adinkana nigu noqoto dhiirigelin barnaamijkan aad u muhiim u yahay gabdhaha bilaabay day 1 oo maalintii koowaad ay isla bilaabnay farta soo taaga soo dhaha day 2 ayaa mareynaa si adinkana ay motivation nigu noqoto insha Allah muuqaalkan ina ka heshay rajeynaya fadlan like noo dheh sidoo kale subscribe noo saar channelka si ni share gareey oo la wadaag asxaabtaada kale sida uga faa'iideystaan maanta challenge-geena waxa ka bilaabeena isbareeyga marka koowaad sida shalay idin tusaba isbareeygan qaabka u sameeyay wuxuu ku jiraa day 1ka hadii aad daawan dib u daabo hadaa bilaabin day 1 insha Allah soo bilaab si aan noola socoto challenge-ga 7 days ka socdana aad noola ogaato result-gana waxa ogaan doontaan maalinta toddobaad marka timaha aad ka dhaqo sidoo kalena aan cabiro insha Allah labada cabir waa soo bandhigi doona la socoyo ku dhaafin muuqaaladan si ay isbedel ugu sameyso timahaaga insha Allah habakaaska ama gargadayga gabdho badan ay shalay soo weydiiyay gargadayga waxa ka helaysaa suuqa bakaaraha hadii aad Muqdisho joogtid hadaa gobol joogtidna meelaha lagu gado dhirta ka fiiri insha Allah dhirta caadiga oo la cabo ayuu kamid yahay sidoo kalena qurxintan waa loo isticmaalaa gargadayga aad u fiican yahay ma sha Allah tintan wuu feereenayaa habeenkii biilo dhigaysaa isagii dhagayaraha kadibna waa isticmaalaysaa maanta waa dhiirigelintiina muuqaalada waxa soo gelinaa waqti badan ah ugu bixiyay maalinta toddobaad ayaa isla arki doonaa natiijada ka soo baxda cabirka koowaad meetinta tahay mise isbedel ay sameysay insha Allah dhagayaraha iyo gargadayga marka isla dhigtid waa miiraysaa marka timahaaga ku dhaqdidna muhiim waxa ay shukumaan inaad ku duubtid si timahaaga oo u galo biyihii amarsay salka hoosana si fiican ugu masaaj gareysid gabdho badan waxay dhaheen saliida goorma marinayna tintaada markii ay qalasho ayaa saliida marinaysaa had tinta way qalan tahay wax biyo ma lahan shukumaan kaliya ku duubay xoogna uma qalajin tartiib ayada iska qalashay mudaxa ku joogaysaa adiga 20 daqiiqo kadibna way ku qalaysaa tintaada saliida u isticmaalay challenge-geena waa saliidan baamiyaha iyo carrot-ka oo organic ah insha Allah saliidan waxtar badan ay leedahay gabdhaha isticmaala jilcisada sidoo kale damage-ka jilcisada kalarka gabdhaha isticmaalay gabdhaha tintooda aan madowga ahayn waxyaabahaas dhan way ka caawinaysaa tintaada inay jilciso karatiin ay ku siiso ma sha Allah gabadheeda yar mar walba saliidan u isticmaala ma sha Allah tintana bixideeda way ka qayb qaadatay ilmahana aad ugu fiican tahay iyo gabdhaha isticmaala jilcisada kalarka qof walba wanaagsan tahay tinta inuu mariyo tinta uu madooweynaysaa sidoo kalena bixida way ka qayb qaadanaysaa insha Allah muhiim waxa ay mar walba shaambada iyo saliida inaad iska hagaajiso sidoo kale waxyaabaha dabiiciga aad aaminto inay waxtar leeyihiin ما شاء الله gabadheeda yar sidaan quruxda badan ee tinta ugu soo baxday ma sha Allah tabarakallah waxay ku jirtaa dadka xabada weyn tinta leh hadana waa u shanleynaya tinta marka marinaysidna muhiim waxa ay tintaada inay kala baxsan tahay marka koowaad ay isbareeg isticmaalaysa insha Allah dheewan hadii aan la bilaabin wuu ku jiraa channelka dib u raac insha Allah waxaan isticmaalay hal sabir si aad ugu qaldoomin muuqaalada kala challenge-gan insha Allah step-kan marka aad ka gudubno oo challenge-gan waa isla arki doonaa natiijada quruxda badan noo soo baxdo muuqaalkan hadii ay inta soo gaartay aad wili like noo saarin fadlan like noo saar waxay noo tahay dhiirigelin motivation mar walba waa loo baahan yahay waa waxyaabaha bini aadanka sare u sii qaado sidoo kale waxyaabaha muuqaaladan u sameeyay waxay tahay adinka inay dhiirigelin idin noqoto muuqaalkan waqti farbadana iyaga baxo mar walba aad duubayo insha Allah tinta marka sidaan u marisid saliida muhiim waxa ah in hal galaan ka dhigtid sidoo kale tintaada habeenkii subaxii shanlay jadwal uga dhig inta routine-ka socdo si aad u aragtid isbedelka insha Allah aniga loo waqti u shanlaya waa subaxii iyo habeenkii 7 days challenge no shampoo no condition insha Allah gabdho badan oo tijaabin jirin waxyaabaha dabiiciga waxa rajeynaa inay motivation u noqdo ee dhiirigelin u noqoto muuqaaladan adinkana sii gaarsiya sida uga faa'iidaan la soco day 3 insha Allah sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum